maanta adduunyada aynu joognaa waa adduunyo fasahaadku aad ugu batay dhaqan xumada noocaas ee qowm luud ilaahay uu ku halaagay ayaa maanta caalamka waxay ka noqotay wax muxtarama oo dawladda u adeegayaan oo xoog iyo xoolaba lagu difaacayo lagu meel marinayo oo qofka ka soo horjeesta gaal iyo muslimka uu yahayba ciqaab ku mutaysanay ودبر العبد زنا كالأجنبي بقول halkan marka halkan wuxuu ku ishaaraya xukm liwaad ka xukumkiisi oo liwaadku de waa inuu nin wax ka dayo taas liwaad la yiraahdo muxuu adoonka si gaar ugu sheegay waxa adoonka si gaar ugu sheegay in badan bay ay daarintaas dhici jirtay bay yiraahdeen in adoomaha dadka qaar kood ragga ay xumaanta ula tagaan takale waxa dhici karta ninka adoon kale inuu siraado sida adoontaadu xalaal kuugu tahay iyo adoonkaaguna xalaal kuugu yahay oo umumka aayadaba ku dagma oo ma malakat aymanukum laakiin oo ma malakat aymanukum adoomi dumarka in looga jeedo oo adoomi ragga aan ku jirin ayaa la isku waafaqsan yahay way marka waxaan loo yaqaan liwaadku waa xukunkiisu عند الشافعية وحكم كزنا دون حكم هو حكم الزنا وضو محسن يهي كاللوات كالسمية ورجم هذا محسن هنا محي جلد وتغريب عام كلها مسألة يسكو خلافة كلمة يربان دون كيرا هذا أرين تاسكو سابسا لواتك maanta adduunyada aynu joognaa waa adduunyo fasahaadku aad ugu batay dhaqan xumada noocaas ee qowm luud ilaahay uu ku halaagay ilaahay uu yiri wama qowm luud minkum bibaid reer luud idin kama foga waxaanu ku sameeynaa wada arkaysan waa la qaaday inta la fujiyay dhulkii ay deganaayeen samada inta lagu dhaweeyay ba halka laga soo afrogay markaas dhagaxan naarana laga soo dabasho والعياذ بالله قوم ka wixii ilaahay uu ku halaagay oo dhaqan xumo ah oo fitrada insaanka ee saliimka iyo damiirka badqaba uu diidayo ayaa maanta caalamka waxay ka noqotay wax muxtarama oo dawladda u adeegayaan oo xoog iyo xoolaba lagu difaacayo lagu meel marinayo oo qofka ka soo horjeesta gaal iyo muslimka uu yahayba ciqaab ku mutaysanayo xarig shaqo laga eriyo darajo laga rifo wuxuu noqday wax la isku sanduleeynayo oo la isku khasbayo dhulka islaamkana waa lagu faafinaya aad baa lagu faafinaya dhulka islaamka dawladaha ku faafinaya hay'ado iyo muassasaad baa ku faafinaya waxa loogu faafinayana wax kala ma waxa la doonayaa dadka in damiirka laga dilo oo hadii qofku shuqulka qowm luud uu galo wuxuu noqonayaa qof damiirkiisu dhintay buu noqonayaa iyo dadnimadiisii iyo garashadiisiba marka waxa sahlanaanaysa qoomka dhaqanka noocaasi uu ku dhex faafo in la dulaysto oo la adoonsado oo waxa la doonayo laga fushado walihaada waxaan leeyahay waxayna la gudboon dagaalka noocaasi ahay dadka muslimiinta uu ku wajahan yahay baynu ka midnay waxa la doonayaa marka dambana inta muslimiinta dhexdooda dad noocaas lagu abuuro oo lacag marka hore lagu geliyo in marka dambana la yiraahdo waa aqaliyo oo dad laga tiro badan yahay oo wadanka jooga xuquuqdooda waa in la siiyo madaxtinimada waa in laga qayb geliyo xusaskooda iyo arimahooda inay qabsadaan waa in loo ogolaado lagu ciqaabin marka hadda dhulka islaamka bidaayada maraysa laakiin nihaayada lagu socdo waa tan noocaas oo taayada dhulkooda marka leega ay gaadheen marka waxaan la gudbaan arrimaha noocaas in aad iyo aad loogu foojignaado oo de qof waliba diintiisa iyo dadnimadiisa uu ilaashado waxaynu joognaa aakhiru zamaankii uu rasuulku kaleey salaatu wasalaam yiri yabiicu diinahu bi'arad min ad-dunya qalil qof baa diintiisa wuxuu ku iibinaya dheef yaro adduunyo ku iibinaya bal ninka ka waran diintiisi dadnimadiisi sharaftiisi shilimaan siisanaya waliba waxaan dadka faafinaya dhulka islaamka ku faafinaya ma aha dad aghbiya doqomaayo bila aqliya
qofka intay lacag iska siiyaan odhanaya hawshaasi orodoo samee waa la daba socdaa qofka waa la kormeeraya waa la duubaya hadduu xataa idhaahdo wixii waan ka baxaya anigu waan iska daynaya waan toobad keenaya waxaa la soo ku kan adoo samaynayo qaawan carbal waa taasi juuqdhe carbalna sheeg wallaahi waanu ku faafinaynaa baa la leeyahy marka qofka muslimka ahi waa in noqdo qof diintiisa iyo dadnimadiisa ilaashanaya shilimo yarna aan dhaafsiisan maxay shilimo kuu tari haddii ummadda dhexdeeda xumaanta aad kaga caan baxdo bal u fiirsa waalidkaa muxuu dareemaya awlaadaadii say dadka ugu dhex noolaanayaan bal ninkii xaasle xaaskiisii ka waran yani marka sawirada ninkeedii xumaantaad samaynaya ama lagu samaynayo meelaha lagu soo daadiyo soo marooro dilaac dadkaasi u dhiman maayaan waxaa kaloo waajib inagu arrinta noocaasa ka digtoonaanteeda iyo ufoojignaanteeda dowlad iyo shacabba inaynu meel uga soo wada jeesano ciqaabka dadkaasi ay mudan yihiinna waa in la mariyo markaa qofka arrintaasi ay ku caddaato xukunkiisu muxuu noqonayaa culamaa ulislaam way isku khilaafeen qowl wuxuu leeyahay waa la dilayaa waana qowlka saxaabada laga soo wariyey sida loo dilaya haluu kala duwanaadaba qowlo wuxuu leeyahay maya waa tacziirun tacziirta waxay noqon kartaa in la xidho marka haddii xadhig lagu tacziiro xadhigga waa in loo badiyo ile tacziirtu waa ciqaab la rabo qofku inuu kaga go'o xumaantane oo 20 sannadood 30 sannadood 40 sannadood 50 sannadood xadhiggooda laga dhigo haddii la idhaahdo 7 sannadood baa la xidhayaa qofkii arrintaasi ay ku caddaatay oo habeen iyo maalinna waa loo tirinaya wuxuuba 4 sannadood bay isugu ururayaan dee qoladii waxaan gelisay jeelkana way ku xanaanaynayaan markuu soo baxana ila in yar buu xidhaa hawshiisii waa ka wadanaya bulshadana wuu aafeynaya waana wixii waa waslad xaaraan u quruntay wey oo mudan ummadda in laga qabto culimada qaarna waxay qabaan liwaadku inuu zinada un la xukum yahay waana sida madhabu shaaficiya wey oo qofkan liwaadka markaa sameeyey haddii ay qof muxsana waa dhagax baa lagu dilaya haddii uu yahay qof aan muxsan ahayn oo guur sharci oo sax aan soo marina waa la jeedalinaya waa la mastafiriska waxaa looga dhigi karaa dee xadhig ayaa looga dhigi karaa marka arrinta waa in aada loogu baraarugsanaado